Bismillah. Waa kan casharkeeni ku saabsanaa qaabka loo upload gareeyo ama loo soo dego. Stepkan markaa soo martid waxaa sugaysaa inta kaliyaata uu ku maartay download gareysmayo. Waana markaa linka ku soo dhafato xogaa la waadina sugaysaa hadba khadka ay ku xiran tahay. Waxaa laga yaabaa intaas aniga sida fudud igu dhamaatay inaad kugu dheeraato. Marka waa iska sugaysaa. Okay, iminka dib ayaan uga baxaynaa. Kadib waan soo kicinaynaa. Markaan soo kicino qaabkan uu soo baxaya. Wax yar bay sugnaadeen intuu hawsha dhammaynayo. Kadib waxaad ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay ECN Ghana. Kadib waxaan ku dhufanaynaa ii sheegay meesha ay ku qoran tahay open a demo account. Next waan ku dhufanaynaa. Okay, cabaar bay sugnaa. Halkan hadda waxaan ku qoraynaa magacaaga, talabaad emailkaaga, saddexaad koodhka waddankaaga ama waddanka joogtid koodhkiisa. Meesha yar baa soo kicinaysaa. Haddaad Soomaaliya joogtid Soomaaliya, haddaad Turki joogtid Turki, haddaad joogtid maartay Ingiriiska Ingiriis waad ku qoraysaa. Kadib meesha ka horeysa lambarada yar qoraalka casaanka ku qoran yahay waa nambarkaaga. Nambarkaagaad gelinaysaa. Kadib maartay application-kana dad baa moodaya waday dhahan demo waa maxay ustaad demo waxay kan waxaa loo soo kicinaya qaab demo ahaan brother lacag ku shuban maysid qaab demo ahaan u soo kicinaysaa. Isaga markaa signals ku siinaya oo maartay signalska saxda ah ee suuqa la shaqeynaya ku siinaya. Okay. Lacag baa markaa halka gelinaysaa. Halka markaa lacag gelisid order rules aad dhamaysid isaga wuxuu kuu saarayaa calaamadda next. Marka uu arkay rules ka dhamaysid halka ku dhufatid calaamadda next kuu saaro next baa ku dhufanaysaa. Kadib cabaar baa sugaysaa akoonka already marka uu kuu soo kiciyay. Akoonkii markuu sida kan kugu soo kiciyo already marka akoonku waa inoo diyaar kaliya waxaynu sugaynaa in maartay haddana aynu meelo yar oo kale soo buuxino sida RSA oo kale Bollinger oo kale Smart Trade meelo yar baa soo kicinana marka waxaan inaad iska saaraynaa hortina yaala. Okay. Markiina waxaan qaabkaas kaga saarno waa inaynu tagnaa data folderkeena waa inaynu tagnaa waa inaynu ka soo baxnaa halkan oo data folderkeena dib ugu laabnaa. Markiinu data folderkeena dib u soo galno waxaynu sugaynaa maartay okay xagga maxay kaga fiican tahay inaynu dhinacan kala soo galno halkan hadda maartay ii sheegay waxaa laga yaabaa inuu RSA-gana xaggan oolin marka waxay noqonaysaa inaynu ka baxno aynu maartay tagno ii sheegay application-ka dib u soo kicino kadibna aan ku dhufano meesha ay ku qoran tahay koonha file-ka kadibna aan ku dhufano open a data folder. Data folder markaas aad ku dhufatid waxaa ku soo dhufanaysaa meesha ku qoran tahay MQLA kadibna waxaa ku dhufanaysaa meesha ku qoran tahay indicators. Markaan saa indicator ku dhufatid hoos baynu u yar baxaynaa. Already hadda uu noo diyaarsanaa ii sheegay dhululka uu noo diyaarsanaa. Dhululka markaynu soo kicino hoos baynu u yar baxaynaa. Waxaa weeye waa inaynu RSA-geena soo koobi garaysanaa si aynu folderkeena ugu dhex baasti garayno. Marka waxaa ku dhufanaysaa meesha ku qoran tahay RSA indicator kadibna waynu soo koobi garaysanana. Markaynu soo koobi garaysano dib baynu ugu soo laabananaa folderkeena halkan ku baasti garaynaya. Marka halkan ku baasti garayno okay waynu iska xiranaa halkan markaynu iska xidhno indicator-ka refresh baan u diranaa si uu inoo soo geliyo meesheenii inoo keeno. Okay. Already hadda waa aragtaan inuu soo galay RSA-geena haddaan hoos u yar baxna waa aragtaan inuu soo galay halkan. Okay. Haddana maxaa inoo dhiman inaynu chart soo kicino markaan chart soo kicino inaynu isaga markaa attach chart ku naano oo isaga dib u soo kicino oo xagga soo galino. Marka waxaan ku dhufanaa right click markaan ku dhufano waxaan oranaa attach the chart. Chartki igu soo kiciyo. All the rules adiga waxaan ku diyaarsiin shaqadaada maaha meelahan aan ku taabanayo kaliya toon okay baad raacinaysaa. Markaad okay raacisid okay waa kan uu soo kacay RSA-geena wada aragtaan RSA-geena inuu soo kacay. Maxaa hadana inaga baahan yahay inaynu soo gelino ii sheegay indicator-rada intii naga dhamaanayd inaynu soo koobi garaysano kulligood ilaa in yar oo maartay annaga naafacayna aan gudaha kaga imaanina mooyaan. Okay, control A baa taabanaysaa halkan. Markaad control A taabatid waxaynu iska reebaynaa xoogaa folder ah oo inagu maartay shaqadeena ahayn ama aan waxba inoo qabanayn. Okay. Ilaa shan meelahaas iska reebaynaa markaynu intaas ka reebno copy baan wada oranaa kulligood waxaynu dhex keensanaa application-keena kulligood markaan copy wada niraano waynu ka soo baxaynaa application-keena dib ugu soo laabananaa halkan aan daba ku baasti garaysananaa. Markaynu halkan ku baasti garaysano all the rules hadda way inoo baasti garaysan yihiin waxaynu imaananaa meesha ay ku qoran tahay ii sheegay volume refresh baan oranaa si uu inoogu soo kaco. Markay volume ku dhufano oon refresh naano okay all the rules hadda way inoo soo kaceen Bollinger baan soo kacsanaa. Bollinger markaan saa u dhufatid Bollinger MA attached baad oranaysaa and the chart wuu kuu soo kiciyay all the rules wakaas
haddana waxaa ku dhufanaysaa ii sheegay meeshay ku qoran tahay unlimit markaan ku dhufano all the rules wuu inoo soo kicinayaa. Markuu inoo soo kiciyo haddana xoogaa inaynu hoos u baxnay noqonaysaa. Markaynu hoos u baxno waxaan ku dhufananaa meeshay ku qoran tahay smart trade attach chart isagana ku dhufanaysaa waa soo kicinaysaa. Markaad soo kicisid already hadda badankooda waan diyaarsanay. Haddana waxaa ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay unlimit trade markaas ku dhufatid attach chart ay ahayd already iminka application-kaagu waa verified. Waxba hadda kaama dhigna. Waxaan rajeynayaa in maaragtay aad step by step u raacaysid ruleska iyo nidaamka aan soo raacay. Haddaad wax ka fahmi weydana insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ku ceeshitid codkayga aad maaragtay qaabkaan ugu dhufanayo iyo meelahaas aad la raacdid. Insha Allah waxaan rajeynayaa markaa inaad la helisid.